mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Gabiley oo kaashanaya dadweynaha reer Gabiley ayaa olole nadaafadeed ku qaaday goobihii uu maray qorshe magaaleedkii laga fuliyay gudaha magaalada kuwaasi oo ahaa dhismayaashii laga dumiyay 8 wado oo uu maray qorshe magaaleedkii hawlaha guud ay ka fulisay gobolka Gabiley waxaana gabi ahaanba halkaasi laga nadiifiyay qashinkii iyo burburkii dhismayaashii laga dumiyay si kor loogu qaado bilicda magaalada Gabiley oo waqtigan maraya meel wanaagsan xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gabiley Mustafa Maxamuud Cabsiye iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Gabiley ayaa TV-ga Aerial uga warramay hawshani ay fuliyeen maanta waxayna hadalkoogii ku bilaabeen sida tan waxa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Gabiley ka socday dadaalo kor loogu qaadayo bilicda magaalada waxaana maamulka dowladda hoose ay magaalada Gabiley ka hirgeliyeen oon aad iyo aad ugu bogaadinayo sida ay u soo dhaweeyeen bilicda iyo qurxinta magaalada waxaan leeyahay waad mahadsantiin dadweynuhuna iyo dawladuna haddaana gacmo wada jir wax ku qaban waxba ma qabtaan marka waxaan leenahay sida fiican ee nolol shaqaynaysan annaguna aanu u shaqaynayno waxaan leenahay dadweynaha aad iyo aad baad u mahadsantiin waxa weeyaan iskarab qabta iyo gacmo wada jir geerashada waxaan u qabanay 15 cisho gudahood inay kaga qabsadaan oo deerka ku samaystaan waxa kale oo leenahay iskaraabyada guryaha hor yaala iyo wadooyinka jidadkana in laga qaato muddo 7 hadii kale wiishka ayaan u soo diri oo aanu qaadana shaqo wacan baan leeyahay marka waxaan leenahay dhammaantood dadweynuhu ha u kacaan bilicda magaalada iyo qurxinta dadku duniyana lagu guray xashiishkii iyo wixii haraayadii badankeedu waabana soo sifaynay marka 8 wado ay martay tobalenku iyo master balenku ay mareen la hagaajiyay ayaan dhamaantood qurxintii annaguna magaalada aanu ka qayb qaadanaa dawlad hoose ahaan ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa xogayaha fulinta maamulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley Mustafa Cabsiye oo ah nin hawlkar ah oo wax weeyii nagu dardargeliyay had iyo maalin naag istaagay iyo dhammaan maamulka fulinta dawladda hooseba runtii saaka halkan aanu taaganahay waa wado kamid ah wadooyinka laamid ee dhaxmara wadada magaalada Gabiley halbowlahana u ah sidaad imika halkan ka wada muuqata ama aad arkaysaan waxaynu wadanaa shaqo maalmeedkaygii kaasi oo ahmiyadiisana ay tahay inay magaaladu noqoto magaalo nadiif ah oo bilcoon oo qurux badan maadaama aynu nahay degmadii cagaarka ama gobolkii cagaarka oo iyaduna u tahay hoygii ay tahay caasimadii gobolka oo ay ka mid tahay caasimadaha waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaantii golahan deegaanka ee degmada Gabiley ee uu hormoodku yahay maamulka fulinta ee ugu horeeyo Maayir Maxamed Cumar Cabdi xogayaha fulinta iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalooyinaha dawladda hoose ee degmada Gabiley waxay leeyihiin qorshe 5 sano ah qorshahaasi oo ay ahayd ahmiyadiisu in la helo magaalo qurux badan oo bilcoon oo isla markaana dhan walba adeegyada asaasiga ah ka dhameystiran run ahaantii taa waynu ka soo gudubnay imikana waxaanu maraynaa inaanu caasimadda u ekaysiino caasimadaha caalamka taasi ayay ku lug leedahay qorshahayga nolol maalmeedkii ayay ku jirtaa bulshadana waxaanu leenahay bulshooyinka reer Gabiley ee jecel horumarka ee naagis taagan waxaanu leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida aad noola shaqaynaysaan iyo sida aad noo soo dhaweynaysaanba inta had iyo jeeraale aan hore uga qaadanin ee gawaarida jajaban ama se geerashada oo kale aan iyagana waxaan leenahay waqtigaad haysataan inta idinkuna kaga faa'iideysto sida uu xogayuu sheegay waxa weeye idinkuna inta ka qaata deyrna ku sameeysta insha Allah qacmooda jir bay wax ku daayaan insha Allah waxaan dir rajeen sidoo kale bulshooyintu reer Gabiley run ahaantii iyaga lafti ahaantoodu ay ka qayb qaataan oo iyaga wax walba diyaariyay ayaa aanu nimaadna wixii ka harsan ee yar ilaawana annaga ay tahay shaqadayada inaanu xasuusino insha Allah waanu xasuusinayna cid kasto xataa aan qaadi kareeyno oo iyada ahmiyad u lahayn annaga caawinana u qaadina inuu adeegina had iyo maalinba sida xogayaha fulintu sheegay waxaanu diyaar u nahay inaanu bulshadayada wixii horumar iyo wax qabad ugu filan inaanu qabanno waxa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Gabiley ka socday dadaalo kor loogu qaadayo bilicda magaalada waxaana maamulka dawladda hoose ay magaalada Gabiley ka hirgeliyeen jidad fara badan kuwaasi oo qaarkood yihiin Afarxad Mukhtaar Nuux Ibraahim Aerial TV gobolka Gabiley adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida